السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا فاطمة ورسن شيخ محمد جنال كداونا سانا وصيروخ شيخ جنال أصحابتي إذا شرفت بدن ملك استاد الدنيا كجوكتين وحيد الله هاي خير يا بركة يا نور ما شاء الله تبارك الله الرحمن كنقول كل مي مالين كله جنال كيسيروخ شيخ استقام هاد إسكاله الحمد لله عافية ماد بان إلهي الرحمن أهامر والبكبرينا دنبي جني دنبي واردكين يا دنبي مؤمنين تبا الله دافو بإذن الله waxaan rabay runtii inaan ka hadlo on talana dadka soo weydiisatay gabadheennii ahayd Amiira Qurux mar dhaweyd waxaan soo galiyay clip aan uga hadlayay balse cilad ku jirtay iyo qalad ku jiray videoga ayaan uga saaray oon hadda rabaa marka inaan dib haddana u duubo insha Allah biidnillaahi raxmaan Amiira Qurux habar معه سلامي marka hore adiga iyo wiilkaaga yar waxa idin leeyahay khayr iyo barako hortiina Allah dhigo dhamaan asxaabteedana waxa leeyahay soo dhawaada sheerka iyo leega iyo commentiga quruxda badan mar walba ii soo bixisaana aad bay idin kaga mahad celinaya ma sha Allah tabarakallah Amiira maxaan dhahaynaa waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkii ahaa waxaad naftaada kula talin lahayd walaalka kula tali waa barnaamijkii hore uga bixi jiray Sayruuq Sheekh Journal insha Allah biidnillaahi raxmaan kaasa marka maanta waxaan ku soo qaadanayaa Amiiro iyo taladii ay tiri ila taliya asxaabtayday maadaama aan rabo in aan gabigiisaba isaga baxo YouTube-ka oo aan raba inaan Soomaaliya aado insha Allah biidnillaahi raxmaan iyo hooyaday meesha ay joogto haddii uu rabbi raali ka noqdo run ahaantii marka hooyo tahay waxa u baahan tahay garab badan waxa u baahan tahay dhaqaale badan waxa u baahan tahay meel aad ilmahaada ku korsatid oo sharaf iyo cizi iyo karaamo intaba aad ku helaysid waalidkaaga agtiisa ma sha Allah aad bay u fiicnaan lahayd laakiin Soomaaliya baan wax ka dhahayaa insha Allah biidnillah iyo gabadha marka inta la furo aysan garab haysan ay ku gabato ama wax walbaba u tari karo run ahaantii Malaysia waa meel ay aad u dhibadan tahay nolosheeda way adag tahay balaayo roob badan oo haddana huur badan oo yacni Malaysia waa soo maray waa soo arkay aad iyo aad yacni xaaladda Malaysia xaalad sahlan maaha dadka ku nool waxa weeye wadad ma sha Allah qarashkeedu ma yaro aad buu u badan yahay oo maanta qarash la dhihi karo waa qarash yar tahay ma ay jirto Amiira marka inta yar aan ku soo qabta ayada dad ijecel dad oo maaragtay oo yani ugu weyn ina maaragtay fikradan aan mar walba aan ka fikirayo inaan isoo gudbiyo idinkana sidee tahay ina idinka fikradihiin commentiga isoo reebtiin sida ogtihiin hal sano ka hor waxaa rabay inaan Soomaaliya tago oo hooyaday diiday وكا هل سنة كهر وحرتين الصومالية أدو لكن هذا وحقه عن سطي جبي جذا ببطاطا إني بحضه مركان صوبحي أنت أنا صوبحين عنيقة يعني وحيالا يرير عن صوتها بنايا وحيالا يرير عن صوتها بنايا مركا ككريسيد يعني إن أتككرت الربتيد عيل على الحمو يفكر أنت بمركا الربتيد إن أككرتيد وجانا كرتيد أديك مسكح ذا يا عقل جاجا ما شاء الله تبارك الله ولا لك وقرب تاجنا إن هذا يسطو أيان جعلها ما شاء الله كل تو اسمه ما أنت ولا شيء ذو قرب تاجن يا ولا كذا قرب تاجن أي ضيع أركيسة من رفاض أركيسة إن كستوقفك أوربه إنه مدح بناني ديسة مال أمره أما وحكو قبصه إن كستوقفك أوربه ما شاء الله تبارك الله برامبر waxaa jiray hadda ka hor aan qaaday waxa ku jiro unug magaciisa ku jiro waa ka saaraya la waa ka reebaya hebalow hooy dumahar waano taag xumaahay tabiira ma haysta iyo hota kuleheenesleeg tolkee lama joogiyo wanta lama haya qofka markuu kaligiya gabadha sideedaba markay ninka isku dhacaan
reerka waxay u jecel yihiin inuu gabadhan gurigeeda iyo qoyskeeda sii dhisnaado dembi aadan lahayn iyo waxaadan lahayn iyo wax walbo ayaa oogada lagaa saarayaa ilaa marka dambe waalidka uu runtii yacnaha taabto oo runtii uu arko markuu arko waalidka isagaa ku raali gelinayo maasha allah tabaaraka allah wax walbo aabahayaan ku qadarinaye oo markaas ayada ah la iga rabay wixii samay la idhaho oo aabahay markaa igu qasbo waa samaynaye laakiin waa looga baxaayey aabahayna waxaa lagu samaynaye in looga baxo anna wuxuu igu qasbo haya leendhahaayey because waa diidayey maadaama aabahay uu yahay nin shaq caalim ah allaha raxmaanka jannadiisii ha ka waraabiyo jannatul firdaws aclaa ilaahayga raxmaan ayaan oga baryayaa markii dambe ee aan Hong Kong imaaday ee aan soo baxay waxaan iri gacaladii ila dhasho howgesiya bahay garaahad badan hooyadeeyo la gaare karin gayima aan joogi gayahaankaygii waan ka taagay gabanadan dhalayna gacantiina yahay ka bixin gabanadan dhalayna gacantiina yahay ka bixin yacnaha waxaad dareemaysaa hooyo markaad tahaa dareemaysaa waxaad dareemaysaa culayska meel walbo kaa soo koraayo ama kaa soo saarmayo waxaan rajaynayaa gabdhahayga yaryar ee quruxda badan ee sharafta badan in ay u dulqaataan dhibaatooyinka yaryar ee ku soo dhacayo way ka baxayaan waanad ka qurux badnaan doontaa maalin unbaanad ka sheekeen doontaa wixii aad soo martay ee ku soo maray wax laga sheekeeyo ayay noqon doontaa waxaan saa ku leeyahay amiire habar yar Soomaaliya markaa ku noqotid ilmo yaraad haysataa oo qurbo ah ku dhashay ilmo yar baad haysataa oo jawigaas aan la qabsan karin hawadaas aan la qabsan karin neeftaas aan la qabsan karin meeshuu ku dhashayna joogo meeshaad hadda joogto waxaa laga yaabaa in ilaahay waddo kaaga furo waxaa laga yaabaa in ilaahay wax ka khayr badan ku siiyo oo aad dhahdid marbaan ku qaymeeyayo hodqayayelalahayd marbaan ku qadariyay qalbihigayga aad ku taal qalinkii waan tuuro qalbihigaygii waan ka tiiray qola kalaan siistay furahahayga qaaliga anna qorshaan yeelanehe khayr allaha ka dhigo anna qorshaan yeelanehe khayr allaha ka dhigo adna inaa qorsho yeelataa laga yaabaa oo ilaahaygii raxmaan ahaa uu khayr kaaga dhigo oo saa moodaysid ma ahe si ka fiican aa heshid oo aad noqotid oo aad wanaagsanaatid oo magacaaga uu saro maro oo maanta waxaa ku haminaysa wax ka fiican amiira quruxay habar yar aa heshid oo aad ka raysatid marka mar walbaba rajada ilaahay ha ka qoosanin waxaa taagnaataa maanta meeshaan taaganahay meel ka fiican baan gaarayaa waalidka markaa u tagtid Soomaalidana inta badan waxay ku mahmahdaa runtii walaalkaa wax u heeso waalidkaana wax u heeso sababtay tahay Soomaalida inta badan waxay dhahaan baahida iyo bugtadaba waa la isku nacaa maanta YouTube baad haysataa YouTuberad baad tahay waa lagu daawanayaa dal iyo dibadba caanaad tahay oo gabar la yaqaanaa maanta tahay oo maasha allahu tabaarakallah gabar da'yar baad tahay oo qurux badan oo asturan oo hagaagsan oo maasha allah waxaad kaga bixi kartaa taa iyada hankaaga iyo hamigaaga inaadan hoos u dhigin maanta meeshuu joogo iyo meel ka sarreeyo inuu ku tago inaad noqotid qof YouTube-keedana wax ka soo saaran karto cunugeedana haysan karto inaad noqotid YouTube-ka ku jiritaankiisa waxa ciyaar ma aha waxa maxaan ku yiraahdaa dhaqso ku helaysid ma aha wax barnaamijyadiisa aad intaad markiiba soo qaadato aad ka hadli kartid ma aha laakiin ilaahay xirfado ayuu ku siiyay design-nada ayuu ku siiyay makeup artist inaad tahay
inaad yacnaha galaasya dadka u furi kartaa ama makeupka ku baraysid oo free ku oo dadka ay ku daawanayaan sahabka aad isu hagaajinaysid dadaa xitaa labiska laftinkiisa youtube-ka ka barto dad baa waxay ka bartaan wax walba oo qofkan uu sameeyo ku dayo dad baa u sameeyo dad baa janalkaaga ku xirnaanayo oo haddaba kuugu xiran marka inaad hal mar isgambisid himiladii iyo hamigii iyo hankii aad ka lahayd youtube-kaaga aad habar yar soo gaabiso soo baabi'iso waxaan u arkaa run ahaantii oon isleeyahay waa hanjab gabadhaas ku yimi iyo ayada oo isleh youtube-kan hadalna uma keeni kartid warna uma raadin kartid waxaad horay ugu socotana ma helaysid may marnaba ha isdhihintaa maalintay kuugu fiican tahay oo maalintay yacnaha kuugu xun tahay oo kuugu murugo badan tahay waa maalintay kuugu fiican tahay ood ilaahaygii raxmaan aha u dhowaanaysid cabsida ilaahayna ee markaa ku gelayso siduu allaha raxmaanka ah kurbadan kaaga qaado allaha raxmaanka uu farxad kuugu bedelo waxaa laga yaabaa in aad noqotid qof intaan kasii fiican oo kasii wanaagsanba waxaa laga yaabaa hadalkaaga maanta kaa soo yeeray dad badan inaad ku heshid inaad cod badan ku heshid inaad isbeddel badan ku heshid waxaan rajaynayaa biidnillaahi raxmaan inuu habar yar hankaaga kaa jabin inaadan dib ugu noqonin hooyadaa weeye ma kuu diidanin laakiin ilmo yaraad haysataa ilmo yar baad haysataa meesha u socotidna waa soomaaliya xaaladeedan waa iska allow sahab ilaahay ha saqiro waxay noqonaysa ilaahay baa garanayo maanta dhulkeenna soomaaliya nin walba wuu rabi lahaa inuu ku noqdo laakiin maxaa noo diidan waxaa noo diidan nabad la-aanta noo diidan waxaa noo diidan meeshaasoo kala dambeyn lahayn gabadhaas yarood quruxda badan baa tahay bale amaad afka uga gashaaba iskaba joog meeshaada anigu iskolaysaasaan ku dhihi lahaa yacnaha waana ahaan bay iga tahayna gabar yaroo qurux badanoo wadamadan kasoo tagtay oo halkaa tagtay waa intaasooba dee allaha raxmaanka ha kaa qabto meeshaada allaha kugu nabad yeelo anigu saan qabo meeshaada allaha kugu nabad yeelo cunugaagana meeshaada kuugu koraayaa taladii aadna soo weydiisatay marka maadaama youtuberada aan ka mid ahay maamooyinka soomaaliyeedna aan ka mid ahay oo hooyooyinka soomaaliyeed aan ka mid ahay waxaan isleeyahay wixii talo ah ood naftaada ama kula talin lahayd maxaan ku idhaahdaaye caruurtaada kula tali amiira qurux insha allahu biidnillaahi raxmaan habar yar waxaan rajaynaa kilibkayga inuu kusoo gaaro oo aad dhegaysatid oo aad fiirisid oo aan buraanburada aan soo qaatay aad dareentid sababta igu keentay waxa igu kaliftay inaan soo baxay inaan dalaan dalkaygii ahayn imaaday inaan maxaan ku idhahdaaye asia oo dhan soo maray inaan latin asia aan imaaday oo aan halkaa ka soo baxay oo halkaa ku dhalay oo de halkaas aan kusoo noqday qaxooti oo halkaa de la iga soo qaaday china hong kong marka habar yar easy maaha cayaar ma aha markay noloshu kaa baaba'do si aan nolol kale u dhisatid waxay kugu qaadanaysaa muddo waxyaalaha qaarkood ee nafsadayda ku dhacay waa waxaana u rabin inaan ka sheekeeyo ama aan ka hadlo sababtay tahay waxyaalo badan oo xusuus kugu reebayaa jirta adiga waxyaalo waxaa jiro ama adigaba suuqa kuu gelayo oo kuu noqonayo wax adiga ay bini aadamka berri kuu adeegsadaan ama ul ay kaaga dhigaan ay kugu garaacaan because ma ku dareemayaan waxa adiga kugu dhacay ma ku dareemayaan waxa adiga macnaha aad fikirka noocaasa intaad u soo jeedisay aad u soo baxday ama aad u soo tagtay ama ilmahaadii uga soo tagtay in ilmahaagii haddana lagaa qaato ilmahaagii lagaa fogeeyo waalidkaa laga qaato waxyaalo badan yacnaha aanan inaba caadi ahayn oo maskaxdaada mar walba rogaayo borogaraamyo badanoo waxaa jiro runtii aan isleeyahay dadka wuu anfacaya haddii la sii wado oo waxay noqonayaan dadku dad ilmahoodii iyo xaasaskoodii isku haysto walow gabadhu hadday qaldan tahay ama wiilku uu qaldan yahay qof qalad qaata laga waayaba adduunka gabadhu hadday qaldan tahayna anaa qaladkayga yimi dhihi mayso wiilka hadduu qaladka ka yimina war anu qaladkayga yimi iyo reerkaygii iyo xaaskaygii waan rabaa marnaba odhan maayo gabadhana dhihi mayso war ninkaygii iyo dee reerkaygii waan rabaa
qaladka anigoo xaggayga ka yimi qofna dhihi maayo qofna islama rabo inuu dembi isa saaro qofna islama rabo qof walba wuxuu rabaa inuu libin helo in gardarradiisa loo qiimeeyo oo loo qiro hal kelmadaan idhi anigu hal kelmad ah oo qalbigayga qaboojiso maalintaas haddii la idhihi lahaa yacnaha dhibkaan oo dhan ma dhici lahayn laakiin marka inta 9 mooryaana inta lagu soo kaxaysto maxaan ku idhahdaaye geesaha lagaaga soo caytamo yacnaa adiga dhan waxaad noqonaysaa qof meeshaas ka carar oo ka haajir oo ka tag mooye sii joog oo ku noolow run ahaantii ma dhahaysid laakiin qofka saas samaynayay oo gurigan adiga intuu kaaga daba yimi haddana raba inuu ku gilgilo oo raba inuu kaa saarto xagguu ku dambeeyey maxaa xaggey aaday maxaa ku dhacay waxa waaye nafsi lama galo sideeda bannaanba qof bili-aadana tartiib baa looga baxaa tartiibna waa looga tagaa marka habar yar waxaan ku leeyahay guul iyo gobonimo aan dhammaanayn biidmillaahi raxmaan waxaan kusoo gabagabaynayaa kilibkan habar yar cagaha dhulka ku haysaa meel baad joogtaa meeshaadaa joog ilmahaagaana hayso biidmillaahi raxmaan ilmahaadana ha iska geynin soomaaliya oo kale waa meel dhibada adigaan ku noolaan karin ilmaha yar warkooda badaaye khayr iyo baraka iyo nuur baa idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu